السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel. waa walaashiina xawo cooking oo idin leh kusoo dhawaada channelkayga. axbaabii maanta waxaa inoo wadaa insha Allah tacaala haddii rabbi idmo saliida oo timaha u fiican oo gabdhaha timaha u soo saarto, hooyooyinka gabdhaha yaryar haysto muxuu ahaaye sideedo kaleete oo hooyo ah. marka insha Allah waxaan rabaa inaan idinla qaybsado saliidaha saa anigu u samaysto oo gabdhayga timaha aan ugu soo bixiyo ama aan ku caawiyo tintooda inay ku korto. marka how to grow your hair natural oils and mix all together insha Allah. all these oils aan rabaa inaan isku walaaqo halahaano saliid ah aan rabaa insha Allah tacaala inaan isku walaaqo ama maxay hito aan hal meel ku shubto. marka waxaan meeshaan ku haysanaa saliidan magaceeda waxaa la dhahaa akashi hair oil waaye akashi. marka geedkaasi ka samaysan tahay kow iyo vaseline. saliidan vaseline la dhahaa, waa taqaaniin wadankii waa laga heli jira saan u malaynaya. vaselineka marka waxay tartaa hair condition, waa hair tonic waaye. timaha waxay ka ilaalisaa in ay daataan ama ay dhacaan ama maxay hayto oo qofka bidaar ay gasho ama maxay hayto timihii ay baaba'aan ay ka caawisaa saliidani. marka vaselinta hair tonic waaye, conditioner waaye. marka timahana soft ay ka dhigaysaa, jileec oo qurux badan. marka tan waa iska taqaani axbaabi. waxaa la dhahaa iidan waxaa la dhahaa fatika oo ka samaysan waaye tun ama garlic. tan waxaa waaye pure almond oil waaye. marka almond oil waaye tan iidan maxaa la dhahaa saliid looska iidan tinta maasha Allah ka dhigaysaa, waa la ogyahay. marka kanna waxaa waaye castor oil waaye, iidan pure waaye. castor oil natural waaye iidan. marka black Jamaican castor oil laga sameeyay iidan taas waaye. marka white waaye tan, black ma ahan. marka taas iyo saliidini macsarada, qofkii yaqaan waa yaqaana macsaro idinka dhumaysa asxaabe. saliida macsarada dukaan walba Soomaaliya laga helayaa, waa sesame oil. marka sesame oil kaani waxaan ku darayaa iidan ku dhex darayaa insha Allah. waxaan haystaa dhaladan faaruq ah ii taalo. dhaladan faaruq aan ku shubayaa empty jar and all of them ku shubaa insha Allah. marka sidaas ila socda. saliidan waxay ihaynaysaa ilaa ma aragtay 5 bilood 6 bilood aan isticmaalaa. we will start first akashi oil. waxyaraan ka reebaa kasyar because ayada u weyn dhalada xoogaa. marka gabdhahan u marinaa mar walba tinta dhaqatinta waxaa la mariyaa ayadoo ah wet. you need to use wet hair with oil can grow wild your hair guys. marka ayadoo qoyaan ahaa la marina haddana waxaan ku daraynaa garlic oil iidani half aan ku darayna kista taas aan ka reeba camal aan ka reeba iidana. waxaan ku daraynaa haddana castor oil. castor oil ka timaha wuu bixiyaa, it kind of growing hair. castor oil ko okay. waxaan ku daraynaa haddana almond oil. these 6 oils. marka intaana inta laisku soo dardaro dhalinyar lagu soo shubaya waxaa lagu dhahayaa waxaa laga gadayaa 15 20 25 lagaa siinaa lagu leeyahay tima bixis waay tiriid saan yeelasho waay lagu dhahayaa. ma adin samaystada gurigaa ku samayso, adiga gurigaa ku samayso dhigo dhalada camal haddaa haysan caadi ah ku shubo. kind of waxaan rabaa inaan buuxiyo. I need to make full because I don't want to maaragtay inaan buuxiyaa rabaa inaan ku daro again. okay. yaris waxaa ku darayaa saliid macsar waxyar waan ku daraa xoogaa yar marka badana macsartan way fiican tahay. sesame seeds so nice waaye. marka insha Allah halahaano saliid marka oo aan isku qaso oo aan dhigo timaha mar walboon dhaqo waa u marinayaa. markasta oo aan dhaqo it goes stays like 6 months. the hair grow oil waaye. all of them waxay igu fadhiyaa kulligooda 5 saliidood waxay igu fadhidaan haddii laga bixiyo macsarada gurigay taalaa
uma baahni inaa soo gadato guri walba Soomaaliya laga helaa macsar. marka halahan saliid waxay ugu fadhidaa 10 baan oo agteena ah wax saas qaali u ah ma aha laakiin markii naag facaga isku soo dardarto ay ku dhahdo ana saliid soo sameeyay ma bixisaa wala bro sida la yeel maxaa ka gal adiga isku samayso isku dhex darso isku qasay dhigo markaas isticmaal ya marka waa kaas maamooyinka ha ka faa'iideystaan insha Allah oo heesto gabdhaha ama wiilasha qof walba loo marin kara boys girls man mom dad anybody at household they can use it guys. This hair oil the grows oil of hair mashallah is really nice way marka timaa way soo bixinaysaa tintaada mashallah mar walba dhaqdid tinta shaambo ku dhaqdid iyo conditioner ka bacdi ayadoo xogaa yar uur qoyaan asaliidi marinaysa waa ku duuduubaysaa waad ku joogaysa shaqadaada ku qabsanay ka bacdi hadana ama waa ku seexan habeenkii ma dry grainaysid ma qalajinaysid tinta sideedii aad ku dhaafaysaa marka sideedii inay ahaato waaye biyaha marka tinta dii qalajisid ama foonay maadna ka dawoodid ma fiicno marka tinta daarti inay ku baxdo mar walba ayada uur qoyaan mari oo xogaa yani uur qoyaan waxaan ka wadaa oo like wet camal oo kisto qoyaan camal markaasi yani mari marka marisidna roll it kabacdi ku seexo habeenkii sleep like overnight and another day hadana shalay subax kale hadana habeen marka ku seexo wixii kala soo kacday hadana shalay isku xir sida caadi hada banaanka aadiso xirto taakada gadaal loogu xiro camal ka dhigo hadana habeenkii kala duudub wax yar hadana mari shalay tinta shalada way ku baxdaa ii saliidahan oo fiican hada haysatid marka saliida aniga gabdhayga oo isticmaala ma sha Allah wax badan aan ka fahmay aniga qaasatan naftirkeyga tima ay go jireen dib rafaad kala arag waxa ku ma sha Allah tima xariir oo qurux badan daarto oo dheer kala arag ku gabdhaha oo tima u soo koray oo yar yar ka way anfacaysaa ahbaabi insha Allah waxa idin rajaynaa ka heshaan insha Allah intaan ku kulmi doona video xeega waxa idin kaga tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh كفائديسي وناكسن إن شاء الله. If you are new to our channel, please subscribe. إن شاء الله like and share. Welcome, this channel is your channel. Guys, hadaan ugu cusubtiin asxaabay soo dhawaada abayaal abooyaal dhammaan la soo dhawaada saliidan insha Allah dadka bidaarta ku soo socoto waa u fiican tahay iyo dadka caadiga dadka rabtinta inay korsadaan oo dabiici rabo inay ku noolaadaan u fiican tahay masha Allah. wax barfuum leh kuma jiro saliidaha barfuumka leh waa tinta wax cuncunkii qolfaad ku galana tinta marka waxay noqonaysaa maxaa la cambaar cambaarkaas wuxuu ilaalinayaa tintaada inay korto ama ay soo baxdo oo u diidaa qolfkaasi meesha tinta ka soo baxaysa wuu oodaya wuu daboolaya ma fahanti marka always marka dhaqdid markas aad dhaqdid mari saliidani insha Allah waxaan idin rajaynaa inaad ka heshaan ahbaabi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.